kulankan ballaaran ee uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia mudane Maxamed Cabdi Cumar uu kula qaatay jaaliyadda qurba joogta ee ka soo jeeda gobolada Soomaalida ee Ethiopia kula qaatay safaaradda Ethiopia ay ku leedahay magaalada London waxaana kulankaasi ka soo qayb galay boqolaal oo isugu jiray rag iyo dumarba madaxweyne Cabdi markii uu soo gaaray safaaradda ayaa waxa dibadda si heer sare ugu soo dhaweeyeen madax ka mid ah ururada jaaliyadaha iyo waliba kuwa kale oo siteen labada calan ee Ethiopia iyo waliba kan deegaanka kadib markii uu galay gudaha ayaa haddana dadweynihii sare u kaceen iyagoo soo dhaweynayeen xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay safiirka dawladda Ethiopia ee u fadhiya dalka Britain oo wafdiga ku martigeliyay safaaradda isagoo halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay dhanka kalena goobta ayaa waxaa ka hadlay madaxdii wafdiga la socotay uu ka mid ahaa wasiirka shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka dalka Ethiopia mudane Abdul Fattah waxaad ogtihiin in dadaal fara badan dawladdu ay xilliyo kala gedisan ku jirtay tiraba muddo fara badan ay isku dayday in wada hadal nabadgelyo lagu dhameeyo dhibaatada ka aloosnay deegaankeena muddada faraha badan taas oo runtii shacabkeena baday hagardaamooyin aad u waaweyn iyadoo markaasi aragtida guud ee ahayd kaadi badana waa loo gobolbadiyaa ay dawladdu ka duulayso ayaan marnaba laga daalin in la isku dayo in cid kasta oo markaasi jecel nabadda lagu soo dabaalo miiska wada hadallada ugu dambeyn nasiib wanaag ururka UWSLF oo qaatay go'aan geesinimo leh iyo sidoo kale ururka ONLF oo isna sidoo kale qaatay waxa loo guuleystay in markaasi heshiiska la saxeexdo jaaliyadda ayaa iyana qaar ka mid ah hogaankooda halkaasi ka hadleen iyagoo uga warbixiyay madaxweynaha qaabka ay u nool yihiin iyo waliba waxqabadkooda iyo mustaqbalka sida ay u doonayaan inay gobolkooda u horumariyaan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda waxaan madaxda sharafta leh halkan joogta u sheegayaa kii in doortay iyo kii aan in dooranba kii mucaarada iyo kii muxaafidaba jaaliyadda gudaha ku jirta iyo jaaliyadda dibadda joogta ama Yurub ama Mareykan idinka ayaa madaxweyne waa mudane Cabdi Maxamuud Cumar adiga ayaa madaxweyne noo ah taasi waa inaad ogaataa waxaan dadka wadankan in badan joogay ee aan aad xoogaalka uga ahaan jirin dalkiisa oo wuxuu maqli jiray uu yahay war electroniga iyo wuxuu raadiyo sheegay iyo waxay sheegto u inta badan markaan tegay horta waxay noo bilaabatay markay noogu yimaadeen wafdi wasiirka Abdul Fattah iyo madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar August 22keedii markii ugu horeysay baan waxaan ogaanay inay jiraan dad kililka ka socdo oo doonaya wadankooda nabadiisa horumarkiisa oo ku dadaalaya inay wax u qabtaan dadkooda dhanka kalena madaxweyne Cabdi Maxamed ayaa aad ugu dheeraaday khudbadiisa isagoo si qoto dheer uga sheekeeyay heerka gobolka uu soo maray iyo midda uu iminka marayo waxaana uu taabtay sidoo kale dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha waxbarashada nabadgelyada iyo waliba horumarka waxaan aad u mahadinayaa oo aad maxaan ku rahay ugu faraxsanahay sida sharafta leh ee wanaagsan ee waqtigiini u soo hurteen populationka dadka 85% waa xoolo dhaqato beeraha inta badan ku baxa ee roobka haatan waxaan u wareegnay kuwa waraabka ku baxa wabiyaasha waxaa diyaar u ah in la dejiyo dad dhan 100,000 oo qoys oo waraab mataqaanaa yani ku beeraha haddaan taa kasii gudbo qaybta dhanka waxbarashada waxa weeye waxbarashada dadka intay qalin iyo buug qaateen iskuulka tagay ee u dhashay deegaanka Soomaalida haatan wuxuu ahaa 758,000 oo arday iyo aroortii iskuulka aada socdaalkanaga wuxuu ku salaysan yahay waxa sida la wada ogsoon yahay dhawaano waxa socday ama deegaankii ka socday ama gabi ahaanba socday socdaallo aan dibadaha ku soo mareynay marka muhiimadda socdaalkanaga waxa weeyaan dhawaan heshiisyadii ay
ururadii UWSLF iyo ONLF ay la saxeexdeen dowladda federaaliga Itoobiya. kulankan oo ka dhacay halkan oo ah safaarada Ethiopia ay ku leedahay dalkan Britain gaar ahaan magaalada London ayaa sidaad arkayseenba waxa uu ku soo beegmayaa kulamo dhawaan ay la qaateen jaaliyada Denmark oo ay ku nool yihiin boqolaal kamid ah Soomaalida ku nool gobolada dalka Ethiopia. haddaba kulankan ayaa waxaa looga arinsanayay heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee labada xisbi ONLF iyo waliba xisbiga UWSLF oo ay ku saxiixdeen heshiis buuxda. madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa uga baaqay jaaliyadaha dega gobolada ismaamulka Soomaalida meel walba ay dunida ka joogaan inay dalkii soo booqan karaan isla markaana uu yahay mid nabdoon. Ibrahim Cumar Baafe, wararka Universal, London.